runtii ma jiro inta aadana dunidani ku nool abaalka aad ii gashay mid ii gali karo ama xitaa ii matali karo waxaana muhiimadda aad leedahay garan kara ama dareemi kara qof la'aanta barbaaray misana duruuf adag ku soo hana qaaday qof kasta oo horumar ama heer sare gaaray waxa uu sabab ah hooyo la'aanteed nolol ma jirto qoraaga maqaalkani qoray waxa uu intaasi raaciyay isbarbardhigga uu ku sameynayo laba caruur ah oo midkood ku barbaaray hooyo la'aan halka midka kalena uu ku barbaaray naxariis hooyo waxaa xaqiiq ah labadani caruur midka helay caawimaadii hooyanimo in uu leeyahay naxariis halka kan hooyo la'aanta ku abaabay uu ka beer adag yahay kan kale taasina waxa ayna tusinaysaa muhiimadda ay hooyo u leedahay ubadkeeda alxamdulillah maanta waan koray oo waxaan noqday nin 22 jir ah inkastoo aan ku soo koray nolol aad u adag oo naxariis la'aan ah farxadii hooyanimo ma helin waqti badan lama qaadanin hooyaday oo aniga oo aad u da'yar ayay geeriyootay ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo mararka qaar marka ay wax dhacaan ama khatar dhinaca ammaanka ah ay jirto misana asxaabtayda taleefanadooda ay soo dhacaano isla markaana ay hooyadood ka soo wacdo misana ay ku tiraahdo wiilkaygiiyo ma nabad qabtaa oo ilaahay ma ku badbaadiyey runtii ilin asxaabta ila joogta aysan dareemi karin ayaa iga timaado welwel iyo murugo iyo xanuun ayaan dareemaa maxaa yeelay anigu ma haysto qof sidaasi iiga fikirayo ama idhahayso hooyo ma nabad qabtaa alla hooyo naxariis badana qofkii waqti badan iyo waayo badan la qaatay ayaa farxad oo dhan helay hooyo macaan hooyo gacalo cafis iyo caafimaad alla adduunka iyo aakhiro ha ku siiyo hooyo waa midaan xaqeeda la gudi karin waxayna mudan tahay qadarin iyo maamuus aad u weyn wax kasta oo ay diidan tahayna iyada darteed ayaa looga tagayaa waxay aan ka ahayn diinta runtii lama hayo taariikhda diin ama nidaam kale oo u tixgeliyay hooyada sida ay diinta islaamka u tixgelisay iyadoo u aqoonsan in ay tahay xubinta ugu mudan in loo samafalo isla markaana leh xaqa ugu badan ee aanan qofna gudi karin maxaa yeelay hooyadu waxa ay soo martaa dhibaatooyin badan oo ay kala kulanto calool ku qaadida ilmaha iyo xanuunka dhigitaanka ama foosha iyo barbaarinta ilmo kasta xadiisyada ku soo arooray xaqa hooyadu aad bay u badan yihiin waxaase ka soo qaadanay xadiiskani nin ayaa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga oo weydiinaya yaa iga mudan dadka inaan u samafalo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu jawaabay hooyada ninkii waxa uu hadana weydiiyay yaa ku xiga nabiga sallallahu alayhi wasallam mar kale waxa uu jawaabay hooyada ninkii waxa uu mar saddexaad ku celiyay yaa ku xiga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu jawaabay hooyada ninkii mar afraad ayuu ku celiyay waxa uuna ku dhahay yaa ku xiga markaasi ayuu nabiga ugu jawaabay aabaha qoraaga maqaalkani aan aad kuga helay qoray ee magaciisu yahay Axmed Carab wuxuu qormadiisa ku soo gunaanadayaa in hooyooyinka la xanaaneeyo marka ay gaboobaan ama cadka ay noqdaan sida annaga xilliga aan itaalka iyo awoodda aan lahayn ay noo xanaanay jireen u samafala hooyooyinka inta cawi iyo ayaan u yeelatay hooyo in ay waqti qurux badan la qaataan وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا